waa markii ugu horeysay oo aan la kulmay muslimiinta iyo kristiyaanitiga oo inta hal mowqif noqday hal dhinacna uga soo wada joostay la dagaalanka qoomka ama khaniisiinta. haddii aad la socoto wadamada Mareykanka iyo Canada waxa ka socdo dagaal adag oo qoomkan looga soo horjeedo. haddaba dagaalka ciidan wuxuu ku bilowday marka ajandahooda iyo arrimahooda ay soo dhaxgaliyeen ciyaalka. waxay sheegeen in ciyaalka la bedelo oo laga dhigo trans, hadduu wiil yahay gabar laga dhigo, sidoo kalena gabadha wiil laga dhigo. waxayna sameeyeen hospitaallo waaweyn ay ku bedelayaan ciyaalka in hormoneska loo kala bedelo. ajandahooda iyo arrimahoodana waxay ka soo bilaabeen iskuulaadka, in manhajka iskuulada lagu dhigo waxyaabaha ay ayaga wataan si ciyaalka looga dhaadhacsiiyo in waxyaabahan wax xaqiiqa ay yihiin oo jiro. My wig on my dress, like I'm ready to go save the world. How many do you want to be a mermaid when you grow up? For me, I think Drag Queen Story Hour is just such a natural fit. It's like one of those ideas that's just so good that I'm shocked that no one had thought of it sooner. sidoo kalena waxay sameeyeen show la magac baxay Drag Queen. waxay sheegeen showgan inuu yahay entertainment ay ugu talagaleen ciyaalka iskuulka, laakiin xaqiiqada dhabta ah